shirkan oo bishii mar la qabto waxaa diiradda lagu saaraa habka ay u socdaan mashaariicda Soomaaliya laga fuliyo iyo horumarada laga sameeyay. shirka waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. waxaa joogay dalalka iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha Soomaaliya taageera. shirka intuu socday ayaa lagu soo bandhigay mashaariicda Soomaaliya laga fuliyay sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan qorshaha horyaala dawladda federaalka iyo dalalka deeq-bixiyaasha Soomaaliya. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyay shirka kadib waxyaabihii la isku afgartay. marka shirka waxa lagaga wada hadlaa la isku weydiiyaa maxaa ay inala qabteen maxaynu inagu qabsanay halkee bay naga caawin karaan sidee bay noola shaqeyn karaan shir muhiim weeye bishiiba mar dhaca qorshaha aynu hayno la isku weydaarsado fulintiisa lagaga hadlo lagu ansixiyo mashaariicda waaweyn ee ay nagala shaqeynayaan iyadoo qoliyaha bilarka 9 tiir baa jiro ka shaqeeya wasaaradaha iyo isugu yimaadaan ama dhaqaalaha ama arrimaha bulshada ama caafimaadka ama hay'adaha wax soo saarka sida wasaaradda wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha iyo xoolaha ay kamid yihiin kuwaasina waa ka soo hadlaan oo agaasimayaasha iyo qoliyaha farsamada iyo hay'adaha la shaqeeya ayaa kaga dooda aakhirkiina waxa la iskula qaataa shirka maanta aynu joognay SDRF loo yaqaan guul buu ku soo dhamaaday xiriir fiican baa naga shaqeeya dawladaha caalamka ee la shaqeeya dawladda federaalkuna shaqooyinka ay qabatay aad bay ugu amaaneen meel fiican bay wax qabadkii sanadkii hore uu maraya sanadkanna in waji cusub iyo niyad cusub iyo shaqo cusub aan wada galno oo lagu wada shaqeeyo la isku xisaabtamo iyaguna inuu kula xisaabtamaan annaguna aanu kula xisaabtamano waxay qabanayaan ayaa meesha ka socoto la isla qaatay aad buu shirkaas u dhacay. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.